السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu nahnay maracda technologies waxaana bilaabi doonaa insha allah tacaala koors cusub oo aan ugu magac darnay CEH waxaa laga wadaa certified ethical hacking. koorsadani boqolkiiba boqol waa koorso oo network offensive course waa koorso aan ku baran doono ma ahan defensive difaac ma ahan, waa offensive, waa weerar. tusaale ahaan oo kaleeto inaad ogaatid systemkaada meelaha uu ka jilcan yahay. koorsadani waxaa qaadan kara qof walba oo doonayo inuu barto cilmiga hackinka ama jabsashada kombiyuuteraadka, mobilada, qalabaadka. waa cyber security course koorsadani waxyaalaha aan ku baran doono waxaa ka mid ah sida web serviceska loo hajuumo ama loo weeraro, mobile platformska sida wirelesska loo dhexgalo, loo jibiyo. waxyaalahaas ayaan ku baran doonaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. su-aal haddii aan isweydiino oo ah waa maxay ethical hacking waxaanu dhihi karnaa waxa waaye waa inaa qofka uu ogaado networkaada ama computerkaada macluumaadkiisa, meelaha uu daciifka ka yahay iyo meelaha laga soo weerari karo. haddii uu computerkaada virus iyo malicious hackers iyo waxyaalo malicious ah oo haddii ay jiraan, waxyaalahaas ayaad ogaanaysaa meelaha uu daciifka ka yahay. marka badanaa hackinku markii uu dhacayo, badanaa dadka doonayo inay jibiyaan computerkaada waxay soo maraan through the network ama internetka dhexdiisay dadka ay ka soo hajuumaan. marka laba aan kala saarno hacking iyo ethical hacking badanaa waa legal waaye, waa cilmi qofka uu baranayo, shahaado laga qaato, imtixaan la galo, kadibna lagu shaqaysto waaye. marka ethical hackingku waa cilmi jaamacado iyo xaro wax lagu barta waaye, course caadi la qaato, imtixaankeedana la diyaariyo waaye. marka ethical hackingku waa sidaas. marka su-aal kaleeta haddii aan isweydiino oo ah maxay ku kala duwan yihiin hackerka iyo ethical hacker. labadan hacker waa kuma? hackerku waa qofka u dhaca kombiyuuteraadka ama networka asagoon ogeysiineynin qofka iska lahaa kombiyuuterkaas ama websitekaas ama networkaas asagoon ogeysiineynin. badanaa waxaa waaye breaks the law, wuxuu jibiyaa sharciguu jibiyaa. laakiin ethical hackerku bilowga horeeto ayuu qofka iska leh networkan uu doonayo inuu tijaabiyo. waa penetration and testing waaye, badanaa waa tijaabo waaye. ayuu waxa uu ka qaataa fasaxuu ka qaataa, wuxuu dhahaa waxaan doonayaa inaan tijaabo aan ku suubiyo networkaada inuu adeegya in kaleeto. marka saasay ku kala duwan yihiin. qofkaana waa qof fasax qaadanaya, kaasna waa qof aan fasax qaadanaynin oo qofkii kale oo waxa iska leh asagoo ogeyn inuu u dhaco, kadibna sidaas kula wareega meesha oo dhan, lagana yaabo inuu dhib u geysto hadhootay. marka waxaa meeqa loo qaybiyaa marka types of hackerska meeqa loo qaybiyaa. white hacker kula lahaa jiro, black hat hacker jiro, grey hat hacker jiro. okay white hackerska waa good guys waaye. good guys maxaa laga wadaa? badanaa waa dadkan lacagta la siiyo ee xirfadooda ku shaqaysto kuna ilaaliyo waaye networkaas. yacni why hackerska su-aala isweydiin kartaa, why hackerska u jabsanayaan kombiyuuteraadka ama websiteska ama maxay u weerarayaan? waxay u weerarayaan waxaa dana kala gedisan waaye. midda ugu weyn danahaasna waxaa waaye keliya in xogtaada ama waxaada la ogaado waaye. dunidu waa data waaye, waa xog waaye. marka black hat hackerka maxaa waaye? black hat hackers badana waa bad guys waa dadka xun waaye. skillskooda xirfada ay lahaayeen waxay u isticmaalaan si qaldan ay u isticmaalaan. badanaa waxay ku xadaan credit cardska, yacni kaarka bangiyada ma aragtay oo qofka uu isticmaalo oo kaleeto ayaa lagu xadaa. ama websiteski oo shaqeynaya ayaa la fariisinayaa
oo dhulka la geenaya taas khasaaro waxay u tahay shirkadaha u tahay marka shirkadaha ayagoo ka hortaga in khasaaradaas ay ku dhacaan ayaa waxa ay shaqaaleysiiyaan white hat hackerka okay grey hat hackerka waa maxay kan saddexaad kan waxaa labadu isugu jira wuuna xun yahay wuuna wanaagsan yahay badanaa marka kan waxaa waaye cilmiguu leeyahay daya farqiga kale u dhexeeya waxaa waaye black hat hackerkan midkan black hacker oo bad guyga oo xun badanaa wuxuu isticmaalaa qalab ayuu isticmaalaa oo ay soo saareen dad kaleeto badanaa xirfad dhammaystiran ma haysto hadafkiisa ugu weyn waa inuu wax hado waxna burburiyo laakiin grey hat hackerkan waxaa waaye cilmigan wuu yaqaanaa waa white hat hacker waaye oo cilmiga uu yaqaana uu ku shaqaysan karaa sidoo kaleetana si qaldan u isticmaalaa marka badanaa maxay aheeday hackerkan oo hadafkiisa ugu weyn waxaa waaye national security-ga wadamada oo kale kuwa u dhaca waaye tusaale ahaan oo kaleeto wadanaa dirsaday wadan kaluu rabaa xogtiisa inuu ogaado badanaa maxay dadka noocaas waaye oo u dhaco wadanka kale ayagoo u sheegin national security ayagoo fiirinaya ammaanka qaranka okay why do people hack maxay dadka wax u dhacaan why dadkan maxay ahayd u dhacaan to make security stronger waxyaalaha u dhacan waxaa kamid ah waxaa ka ah in security-ga ay ka dhigan stronger mid adag mid kale jiri karto hack other system secretly and still important information mararka qaar waxay dhacaan si ayagoona maxay ahayd u sheegin waxay xadaana lagu dhahay warbixinaadka muhiimka ahaa oo ay kamid tahay maxay ahayd waxyaalihii dhaqaalaha sida credit cardki ama reputation loss oo kaleeto tusaale ahaan oo kaleeto waxay u talagalayaanba samcadii inay lumiyaan tusaale ahaan oo kaleeto hadda isbuucii lasoo dhaafay waxaa loo dhacay Soomaaliya wasaaradda difaaca Mareykanka ceebay ku tahay wasaaradda difaaci oo dhan in loo dhaco kombiyuuteraadkeeda micnaha way dhaawacaysaa ma fahanti waxyaalaha kaloo loo suubin karo waxaa kamid ah revenge arsi oo kaleeto sidii hadda kahor ku dhacday shirkad gameska suubiso oo nin uu iska isticmaali jiray shirkadii waxay suubisay ninkii qabatay xabsiga dhigtay asxaab waxaa jirtay marka hackers ah oo dhahay waa u aaraynaa shirkadii oo dhan dhulkay dhigeen shirkadda ugu yaraan 30 ilaa 40 milyan oo dollar khasaartay marka revenge way noqon kartaa arsi noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa show of status noqon kartaa يعني نأركا معنا أنا أقول لنا sidoo kale waxay noqon kartaa just for fun معنا fun معنا يعني wax la iskaga baashaalo يعني ku raaxaysi oo kale inay noqoto marka ethical hacking muxuu muhiim u yahay ethical hacking wuxuu muhiim u yahay events static waa badana maxay ahayd difaac waa wuxuu difaacayaa yani company-gaadiyo difaacayaa sidoo kale tan wuxuu ogaanayaa meelaha daciifka ah ka tahay meelahaas ogaanaya marka koorsada insha Allah taala way inoo sii socon doontaa haduu Ilaahay yiraahdo intaan ayaa maanta aan ku soo koobi doona koorsadan waxay noqon doontaa koorso noqon doonta mid ديل اسبوعي لو مر soo gasho haduu alla idmo insha Allah taala marcad technology saana kala socon doontaan aniga engineer Cabdicasiis Cabdullaah Cabdiraxmaan in soo jeedin doona haduu alla idmo oo salaama ya saaxiibayaal assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe inoo saara channelka si aad maxay ahayd koorsadan oo la socotaan like-na dhaha assalaamu alaykum